السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي سومالي وين waxaan rabaa dagaal maalmahan zaid oo ka socday social media inaan wax ka dhaho weligay ma jecla inaan soo galo ama aan ka hadlo ama dad dagaalaya aan soo dhex galo waxa isoo dhex geliyay arrimo oo aniga hadda idin la wadaago maantay oo ay la fahmaysiin sida aniga wax u fahmaayo arrintaas oo ah anaga hooyooyin aan nahay ama aabooyin ama aabayaal ma dhaxaha ama aabayaal waxaan nahay dadkii fanka ku jiray oo lagu dayanayo so anaga fanka waxaan ugu jirnaa wax fiican inaan u gudbino ummadda Soomaaliyeed ma aha xumaan inaan gudbino xumaanta haddaan gudbino dadku waaweyn waa laga yaabaa inay iska celiyaan laakiin caruurtii inaysan aqli u kala qaybsama aysan yeelanin oo ay dhahaan waxaan dadku waaweyn waa sameynayaan anagana caadi waa inaan sameynaa wixii wax caado ah ay noqdaan ama la isku dayado aniga waxaan aaminsanahay waxaan aan duubayno ama fiidiyoyaasha aan ka tagayno inay yihiin dhaxal intii sano oo adduunkan uu sii joogo waa la wada fiirsan doonaa waxaa ogaata markaa video duubaysidna in videogaas uu weligiis joogayo uusan ka baxaynin social mediaha caruurtaada ama caruurta ay dhaleen ama kuway sii dhaleen inay fiirsan doonaan so haddaa wax sheegaysid ama aad soo galaysid wax fiican ummadda la wadaag haddii kalena gurigaaga iska joog waxba ha soo duubin ani naciima ahaan saas aaminsanahay waxaan rabay oo kale inaan ka hadlo arrin maalmahan isla dhex socdo bulshada dhexdooda laba gabdhood oo saaxiibo ah ama ahaan jiraybo Lucky iyo Farax Kaftan aniga labada gabdhoodba waa laba gabdhood walaalahay ah midna contact lama lihi laakiin haddaan is aragno ama aan xaflada meel ku kulano dad walaalo oo isjecel oo habisi ayaan nahay wax dhibaato ahna aniga maxaa dhihi jiray dhinacayga naciima ahaan labadooda kama tirsanay aniga waxaan aaminsanahay labada qof hadday isla shaqeyn waayaan inay dhahaan walaalay ma kula shaqeyn kari ama walaalo kula ma shaqeyn kari nagu kala wad noloshaada ku noolo anateydan ku noolaanaya antaas aaminsanahay waxaan rabay oo kale inaan ka hadlo waxaa jirtay inaan maqlay dagaalkan wuxuu ku bilowday hees aniga naciima ah anoo heesaa ahayn ayaa hees layga xaday heesan rabay inaan soo saaro layga xaday video layga xaday maxaa dhihi jiray ra'yiyaal ayaa layga xaday inta soo fadhiisay social media lagama yaabo inaan ka caytamo qofkaas waa ku baranaysaa hadduu wax kaa xaday ama wax kaa qaatay amaba oo qof kala siiyey ka dhex shaqeeyay adiga qofkaas ku xumeeyay dadku waa ka baratay so birisada ugu qaldamin thank you yaa leedahay waa ka fogaanaysaa ani hadda waa ku faraxsanahay dadka maxaa dhihi jiray aan isla shaqeynay laakiin aan sii shaqeyn weynay because waqti badan igama dhuminin waa wax fiican inaa dhaqso ogaato qofkan qofka uu yahay midaas ayaan aaminsanahay aniga naciima ahaan hal hees ama video lagaa xaday waa waxa ugu raqiisan oo maantay adiga isla markiiba samaysan kartid adiga maada dhiman waa nooshahay alxamdulillah lixda qabtaa shalay ra'yigii aad ku keentay maskaxda aad ku keensatay inaad samaysatid ayaa weli kugu jirto waa samaysan kartaa qofna adiga ma noqon karo maantay aniga hiblaayo ma noqon karo hiblaayana aniga ima noqon karto qofka waxaa la rabaa bini'aadamka ah horta hore taas inuu aamino midda kale oo aan raba inaan ka hadlo waxay tahay gabdhahan walaalahay ah aan raba inaan u sheego maantay waxba isla cunteen Caaisha isla cunteen waa intaasoo sana saaxiib ahaydeen hal hees oo xuna ama erayaal is dhaafsada aniga ma u arki wax weyn afkiigan ka xiran lahaa dib dambe kula ma hadli lahayn daasid social media na kuma soo fadhiisan lahayn kuma nacayn lahayn social media inta soo fadhiisatid ina ka caytantid ama maxaa dhihi jiray wax ka tiraahdid aniga ra'yi ahaan naciima ahaan waxay ceeb u tahay adiga nafsadaada adiga waxa waaye waxa ka tagaysaa erayo videoyaal qora sheekadaadii oo la sii bedelo la sii xumeeyay inaad ku tashitid waa waxaas oo dhan inaad ka tagi doontid
waxaana fiirsanayo ilmahaagii, ilmahay dhaleen, ilmahay sii dhaleen, waalidkaagii, familkaagii oo hadalkii loo xumeeyaa sii fiirsanayo. So waxaasoo dhan intaysan dhicinbo waxba ma tarayso. Qofka hadduu hal hees ama wax kaa xaday, thank you, barasho wanaagsan, qaado waxaa qaadatay. laakiin ani intaas iyay go-aantaha leedahay. midda kaloo aan raba inaan ka hadlo, video ayaan arkay xalay Snapchat meelahaas aan ku arkay oo laleeyahay Lucky waaye. video markaan fiirsaday aan Lucky waa aqaana, waa gabadha maxaa dhihi jiray xaflada isla tagnay, guri isla fadhiisanay, isla sheekaysanay, manihin dad contact everyday sameeyo, laakiin dad is yaqaano personal ayaan ahay, oo qofka u yahay yaqaano qofkan, ayadoo makeup marsan iyo iyadoo makeup la-aan labadaba ani waa arkay. So maxaa dhihi jiray videoga waa Photoshop waaye. gabar oo xoogaa ayada u egaa lasoo helay, dan waxaa lagu dhajiyey nin inuu yahaa waa u malaynayaa hebel Nicole dhihi karo oo dabada laga soo gooyo. waa taqaan wadamadan nimankii naagaha waa lisba bedelaa. So nin la bedelay inuu yahaan jeclaa, waxaas naag ma noqon karto. gabadhana wax sameynayso inta wajigeeda nala tusaayo maba ahaba Lucky. videoga marka waxa iga qoslisiyay videoga waa sii fiirsaday, aniga Lucky waa aqaanaa. adduunka horta waxa ugu jeclaan jiray mar walba oo dhihi jiray Lucky farahagan jeclahay waxa waaye fara dhuuban ay qabtaa oo kuskus ah. cidiyaheeda hadaa aragto cidiya balaaran ma qabto. cidiyaheeda waa cidiyaha u samaysan qofka inuu cidiya qabo already ay u samaysantaa cidiyaheeda. annagu waa aqaana cidiyaheeda iyo faraheeda loo ka hadli jiray. naagta markay wax sameynayso istaa taabanayso waxaa fiirisaan faraheeda naag cidiye balbalaaran oo fara caata leh waaye, mana aha Lucky aan waa ogahay taas. sheekadan waa sheeko lasoo dhisay ama laga soo shaqeeyey oo Photoshop lagu sameeyey. anaga dhan waa fahmi karnaa, waana wax laga yaqsado ceeb ah. gabar walaasha ah inaa maxaa dhihi jiray wax u raadisid xumaan ah aysan lahayn, maadaama ay tahay gabar fanka ku jirto oo bulshada Soomaaliyeed magac ku leh, ama heesaha noo noqoto ama jilaha noo noqoto ama waxyaalo badanba bulshada Soomaaliyeed u qabatay. ani waxaan dhihi lahaa wixii cay iyo waxaas dhan walaalayaal oo gabdhahayga naga dhameeya please. fankeena aan kusoo noqono, heesaheena iska samaysano. labada qof isla shaqayn weyso waa isla shaqayn waayeen. thank you, barasho wanaagsan, bye. maxaa kuu soo haray? labada isla shaqayn kartaa isla shaqeeyaan. aan u gudbino ummadda Soomaaliyeed wax fiican, maxaa dhihi jiray oo maanta dhaxalgal ah, oo maanta ilmaha yaryar iyo dadkuna fiirsanaya ee maanta naga faa'iidaystaan aan u gudbino. inta annaga isku soo jeedsan lahayn oo lays cayn lahaa oo lays xumeyn lahaa, dadku waxaa ka dhaadhicinaysa fankaba inuu wax xun yahay. fanka wax xun ma aha, waa wax ummadda lagu farxad geliyo. fanka micnihiisa waa farxad, ani sidaas aaminsanahay. maadaama anaga aan haysano nolol kale, like ilma haysataa ama maxaa dhihi jiray shaqa haysataa ama maxaa dhahaa qof oo family sugaayana tahay, waxaas shaqo iyo nolol iyo markii stresskaas aad soo martid, waxa kaliya oo aan farxad geliyo waa fanka marka fiirsanayna filimada ama heesaha ama maxaa dhihi jiray qof wuxuu sameeyay riwaayad ama ha noqoto ama wax kale ha noqoto. waxaas ayaan maxaa dhihi jiray aan isku ilowsiinaa dhibaatadii iyo shaqadii iyo problemkii maalintii iyo aan soo marnay. wax yar oo farxad iyo qosol aan maxaa dhihi jiray aan qosolna aan wixii dhan ku ilaaweynaa. marka aniga Naciima ahaan waxaan qabaa walaalayaalow, fanka haddii aabad ku jirtaanba ka dhaafo wasaqda. dadka oo fanka ku jira ayaan la hadlayaa oo haddana maxaa dhihi jiray fankii wasaqeynaayo. insha Allah wax fiican gudbi ama afkaaga iska xiro. walaalahay sidaas ayaa idinkaga tagayaa. waxaan idin leeyahay inta isku xumaan isku qabto oo calooshii isaga xun hays cafiso. anigana sidoo kale cidaan haysta malaha iyo cidaan maxaa dhihi jiray maantay aan dhibaato u qabo. intii i xumaysana barasho wanaagsan, intii i wanaajisana barasho wanaagsan. aniga qof aan haysto iyo qof aan xumaynayo ma jiro inta adduunka saaranahay. haddii maanta laysoo fadhiiso social media laysoo caaya ama waxa laysoo dhaha xataa ma jawaabaa insha Allah. I will try my best inaan waxaas aan soo gelin. shaqadayda biga badan time mahay, in reality time dhan mahay, laakiin maanta waxaan isleeyahay waa intaasoo wax ay ka faa'iidaan ummadda. wax yar
hadalkan gudbi bado khayr ayaa idin dhaafe. Asalaamu calaykum.